wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiid ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo lagu kordhiyay xabsiga weyn ee magaalada Burco. Dhagax dhigani wasiirka waxa ku weerarinaya mas'uuliyiinta gobolka Togdheer kuwa degmada Burco, taliyaha ciidamada asluubta gobolkani Togdheer, waxaana ugu horreyntiiba dhagax dhigani iyo baahiyaha ay u qabeen ciidamada asluubta gobolka Togdheer faahfaahin ka bixiyay taliyaha ciidanka asluubta gobolkani Togdheer Jaamac Baadi. aanu nahay ciidanka asluubta iyo dhammaan reer Burco in loo dhiso jeelka Burco kaasoo xilligii hore ee la dhisay waxa waqti fog oo marka la sheegayo 1944 ayaa dhismaha imika taagan ee aynu ku shaqeynaa ayuu dhismayba ayaan warbixinta ku haynaa. ilaahay ma hadii weeye maanta hadii uu suura galo inoo suura galay ilaahay ma hadii weeye. waxa iyaguna geestooda hadalka iska daba maray mas'uuliyiinta gobolka Togdheer kuwa degmada Burco kuwaasi oo ku dheeraaday ahamiyadda uu dhismahan cusub ee lagu kordhinayo xabsiga weyn ee magaalada Burco u yeelan doono bulshada gobolkani Togdheer. aad baan u hambalyeynaa madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa dadaalka degdega ee hawsha ka galay waxay ka mid tahay oo mashruucan mashaariicda uu dhagax dhigay iyo ku furay maxaabiis kun ku dhow inuu xareyn karo hawshii aanu u qalab qaadanay ay maanta dhameystirantay. ugu dambeyntiina wasiirka cadaaladda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiid ayaa halkaasi faahfaahin ka bixiyay ahamiyadda uu leeyahay dhismahan cusub ee lagu kordhinayo xabsiga weyn ee magaalada Burco ciidamada bilayska gobolkani Togdheer. halka waxaan doonaynaa saaka inuu inaga amba qaadno dhismihii xabsi dhexe Central Prison aynu ku tala jiray inuu noqdo ka ugu qaad weyn dalka maanta inuu noqdo ka ugu casirsan inuu noqdo ugu quruxda badan inuu noqdo. waxaan rajaynaynaa inuu ka hay'aduhu dhiseen ee Hargeysa ku yaala inuu bilic iyo sharaf iyo adkiba ka bataabaynu rajaynaynaa insha Allah. Abruqaadan Maxamed shabakada caalamiga Wadweyne News magaalada Burco.